wasiirka wasaaradda macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xilkii kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland mudane Xuseen Cabdi Ducaale waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin saaxiibo muddo dheer ay soo wada shaqaynayeen wasiir Xuseen Cabdi Ducaale sidoo kale waxaa hadalka qaatay wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane Xuseen Cabdi Ducaale oo ku dheeraaday waxqabadkii uu ka hirgeliyay wasaaradda muddadii ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay oo u mahad celiyay wasiirka hore isla mar ahaantaasna uga marakacay inuu waxqabad badan sameeyay oo u muuqda wasiirka cusub ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Jaamac Maxamuud Cigaal isku waqti dhow ma carabtaan wada dhoofay isku waqti dhow ma maraykan baan tahay soddon sannadoodii ka badan soddon sannadoodii ka badan baan dadku sababtu ay tahay inuu xilkii aan hayay multi-mas'uuliyadeedii u arkayay inaan dalka kusoo kordhinay ama wasaaradda kusoo kordhinay aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxaan u malaynayaa inaan ahay wasiirada farakutiriska ah ee muxuu ahayey ugu wakti dheeraa dowladdiisii axmed maxamed siilaaye waxaan maalinka maanta u malaynayaa wasiirka keliya baan u malaynaya ahay ama weli toddobadaas sano wasaaraddiisii laga bedelin waxaa dhici karta ina qaar kala jira laakiin waa kolli ma xasuustaan cadawi marinta cadawi waan soo dhaha waa labadaasaan sheekh khaliil يا شيخ خليل مركز وحوي فاكتوريس بعد ما هي وزارتي قبتين رئيس الوزراء ممكن مكملة ده مدحونها والله بالعمري وشي يوم بعد ولاد بيصير هيدو وقف ولا تعال سويدو وشي بعد ولاد إنه الله كرسول الله وشي له ولاد تقول يعني شخصية غير وين هاي واحد قدام يعني هو تقولي يسوق ليسه وهي مسؤولية برضه اسمها رئيس كاسيرة لكن ما في مسؤولية مفتي يعني اللي قبل دري آلي آدم أساسي مفتي أو مفتي شرعي هو شرعي لقدر هو كله إلى في الكريني آلي آدم فرق سنة إلى مفتي نروشي برايف كابون وآلي آدم فرق سنة وحمدي مهدد قارو اللي هي اسمها كود وزارة المعدية تمرتا مفتي كم هاي قسمياشة وقسم عدد مفتي وزارة وآلي أنا رسول شيء مزداد تدور سنوات waxa maalin maanta booqday ee aan wax qabadana moogtay qeyb weyn martida sababta leh ee isugu jirta madaxda kala duwan ee dowladda madaxda golayaasha iyo xubnaha golayaasha dowladda hay-adaha caalamiga ah ee halka fadhiya shirkadaha kala duwan ee qaar petrol iyo qaar tamar ama korontada dadweynaha kale ee sharafta leh ee martida ah ee halkan nala jooga shaqaalaha wasaaradda heerarka kala duwan leh dhammaantiin waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku hadlaqeynaa kasoo qeybgalka inoo soo qeyb gasheen munaasabadda intaa markaa ka gudbo waxaan dirayaa runtii wax badan oo khayr qabaa oo rajo iyo waxqabad muuqdaba leh baa halkan uu ka sheegay wasiirka iyo agaasimuhuba runtii waa qiraya wasaaraddu inay tahay hormoodka xagga waxqabadka wasaaradda marka la eego xagga ama dhismaheeda markaa uga jeedo sheegi maayo guryo qurux badan oo dee guryo runtii guri wanaagsan oo qurux badan oo kuwa diyaarsan ah oo warisay oo waxqabadka ku jira waa jira waxaase kasii qiimo badan waxaa aada uga qiimo badan sida loo dhisay nidaamka wasaaradda shaqaalaheeda محمد جامبر SBS TV